السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين وان إذن سلام يا وحا إذن لها الضيو أولالكينا مهند بحاشي أنت وحن جعليستي إن أن إذن لو ذاقو قصة كالي أو عجيبة يركان أدو جيدان أو خمرق عبيو وحا أها ويل آد قلبي سنذيفو مالين أيو وحولا صاحبي أصحاب آدوحون أصحابتي وحي برين وحياباها من دوريقا أصيقا أولان وي بدلين لا حول ولا قوة إلا بالله saaxiibkaaga siduu yahay ayuu kaa dhigaa hase ahaatee yarkii khamriga markuu cabay asagoo cabsan ayuu wuxuu jeclaystay inuu gurigiisa aado wuu sarqaansanaa weliba aad iyo aad buu u sarqaansanaa dhallinyarada midkii ugu weynaa ayaa wuxuu jeclaystay inuu khamri u shubo markuu dareemo inuu bixi rabo wiilkii wuu ku gacan seeray wuu ka diiday wuxuu ku yidhi bes waan sii baxayaa yarkii markuu dhaqaaqay wuxuu aaday xaafaddiisa dhallinyarada ayagoo qanacsan waxayna ku qanacsan yihiin sida ay u beddeleen iyo weliba qaabka ay ka dhigeen yarkii daawadan la isticmaalo ama maandooriyaha wuu ku cusub yahay aad iyo aadna ayay u qabatay yaa allah intuu waddada socday ayaa waxaa lagu addimay salaadda waajibka ahayd ee maqrib isagoo waddada marayo ayuu wuxuu maqlay aadaanka salaada maqrib markay dhegihiisa ku dhaceen aadaanka salaada ayuu istaagay dhegtana u taagtay aadaankii salaada balse wuxuu aad iyo aad u eegay minaaradda masjidka wuxuuna ka labalabeeyey inuu masjidka galo iyo inuu mowdo masaajidka inuu galo wuu rabaa laakiin wuxuu isleeyahay khamri ayaad cabsan tahay sideed beydka alla ku galaysaa alla qalbi wanaagsana balse nasiib wanaag rabbi subxaanahu wa tacaala aad buu ugu naxariistay waddadii hore ayuu ku soo celiyey yaa rab ilaahay waa qafuururaxiim ugu dambayntii go'aankiisa wuxuu noqday inuu masaajidka galo kadibna oo iska soo bixiyo salaada waajibka ahayd ninkan aad u jeedaan waa culimmada masaajidka mid ka mid ah wuxuu arkay yarkii cabsanaa oo masaajidka soo galay kadib wuxuu isku dayay inuu iridda ka celiyo ayagoo murmaya ayaa waxaa maqlay imaamkii masjidka joogay kadib wuu ka dhex galay uu u dhexdhexaadiyey markuu arkay yarkan inuu cabsan yahay haddana imaamkii uu dareemay inuu doonayo inuu yarkii dugto ayuu wuxuu ninkii ku yidhi iska sii daa sidaas ayuuna masjidkii ku galay ninkii ayaa imaamkii ku dhegay wuxuuna ku yidhi maxaad u fasaxday ninkan imaamkii baa wuxuu ugu jawaabay haddii uu ilaahay qalbigiisa ku soo ridayba inuu masaajidkan imaado ma ahan in la celiyo si walbuu yahay sababtoo ah beydkan waxa uu u furan yahay qof walboo muslim ah ogowna beydkan qofkii soo gala ma ahan qof xun markaan wiilkan fiiriyena wuxuu u eg yahay wiil qalbi wanaagsan ina mare salaadaan tukanay sidaas buu ku yidhi imaamkii yarkiina sidaas ayuu ku dukaday maalintii xigtay ayuu masaajidkii imaaday wuxuuna dukanayay salaadii duhur asxaabtii xumaa waxaa ka reeba rabbi subxaanahu wa tacaala oo u soo celiya waddadiisa wanaagsanayd wuxuu la oonayaa oo la khushuucsan yahay salaadii alle wuxuuna hor taagan yahay rabbi subxaanahu wa tacaala wejigiisa salaadii isaga oo ku jiro ayuu ku geeriyooday salaadii maasha allah walaalkay muslimka ah ma walaashay muslimka ahay ogow geerida inaysan meelna kaa jirin oo weliba xaq ay tahay qof walbana wuxuu dhimanayaa wakhtiguu rabbi subxaanahu wa tacaala u qoray subxaana allah sidaas ayuu ku geeriyooday walaalkeen calaa iyo kulli xaal ilaahay qaatimadeena ha ka dhiga qaatimo wanaagsan ilaahay hana waafajiyo khayrka walaalayaal ilaahay khayrka hana waafajiyo warabulciza warabbulkacba inuusan kula tasheen malaggu wakhtiguu rabbi qoray ayuu ku dilayaa laa xawla walaa quwata ilaa billah walaalayaal aad baad ugu mahadsantihiin daawashadiina iyo sida wanaagsan aad ugu xiran tahay bogga aan ku leeyahay facebooka walaal
waxa ugu wanaagsan ee la faafiyo ayaa ah khayrka. walaal intaad xumaan faafi lahayd isku day inaad mar walba faafiso khayrka. ilaahayna waxa uu jecel yahay kuwa khayrka faafiya. faafi khayrka walaal. جزاك الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لم تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي.